faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo saaka dhex maray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo gaar ah sidoo kale ciidamo maleeshiyaad ah oo taabacsan hogaamiye hore maamulka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaas oo saakay weerar culus ku soo qaaday gudaha magaalada Beedhabo ciidamada dawladda sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed fariisimo goob ay ku lahaayeen iyadoo dagaalkaasi ay isku adeegsadeen labada dhinac xilli maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay war-saxaafadeed soo saareen ay ku sheegeen in gabi ahaanba ay soo afjareen maleeshiyad qabaarij ah oo saakay weerar ku soo qaaday gudaha magaalada Beedhabo ciidamada taabacsan hogaamiye hore maamulka Koonfur Galbeed oo u hadlay afayeenkii hore Cabdixasiis Laftagareen Ugaas Xasan ayaa waxa uu sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada Beedhabo sidoo kalena ciidamadii halkaas ku sugnaa ay ka saareen haatan ay gacanta ay si buuxda ugu hayaan maleeshiyadka taabacsan hogaamiye hore maamulka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoona dagaalka saakay dhex maray ciidanka maleeshiyadka ay taabacsan Cabdixasiis Laftagareen iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed uu ahaa mid gaadma ay soo qaadeen ciidamadaasi iyadoona maamulka iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in halkaasi jab culus lagu gaarsiyo sidoo kalena midadka maleeshiyadkaasna ay soo bandhigi doonaan ciidanka taabacsan madaxweynihii hore maamulka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa in dhawaanaha ku sugnaa duurka magaalada Beedhabo iyagoona halkaas ka waday abaabul xoogan ay ku doonayaan inay gacanta ugu dhigaan magaalada Beedhabo kaas oo muddo 4 bilood ka hor laga saaray iyadoona saakay weerarka ay ku qaadeen gudaha magaalada Beedhabo ay ku sheegeen inay kula wareegayaan guud ahaanba qeybaha ay muhiimka ah ciidamada federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee aadan madow uu hogaamiye ay ku sugan yihiin iyadoona haatan faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan dagaalkaasi saaka halkaas ka dhacay isagoona sababay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo gaaray xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in maleeshiyadka kooxdaasi ay ku tilmaamtay qabaarij ah in halkaasi lagu gaarsiyo jab aad culus sidoo kalena ay soo bandhigi doonaan ama warbaahinta ay la wadaagi doonaan meedad